cilmiga psychology-gu waxa weeyaan waa cilmiga darsa bini'aadanka maskaxdooda. Waxaa jira educational psychology oo sidii hordhaca aan ku sheegayay caruurta yaryar ee iskuulada dhiganaya inay wax ka khaldan yihiin maskaxiyan oo waxbarashadooda ay raad ku yeelanayaan darsa. Waxaa kaloo jira industrial psychology oo badanaa darsa kambaniyada iyo shaqaalaha inay productive yihiin, environmentka ay ku nool yihiin wax ma u dhimaysaa maskaxdooda inay daalaan, inay wax u fiirsan karaan ay darsan, iyo motivationka inay qofka dhiirigeliyaan inuu productive noqdo. Sax. Iyo waxyaabaha dhiirigelinta ka ilaalinaya masalan ku ridaya inuu qofkii uunan shaqadii sidii la rabay u qaban. Marka experimental psychology waa kuwa badanaa researchiga sameeya. Marka waxyaabahan aan baranayno oo dhan inta badan waa cilmiye iyagu ay soo baareen. Sax. oo markii dambe akademiyada soo gala oo dadka la baray mugta. Marka iyagu shaqadooda ugu badanay laabab bay ku jiraan oo jiirka iyo raadska ay badanaa testi karayaan. Tijaabooyin bay sameeyaan. Tijaabooyin inay shaqeynayaan xayawaanaadka yaryar bay tijaabinayaan. Marka wixii ay soo tijaabiyeen ee shaqeynayay bay marka annaka noo soo gudbiyeen. Marka clinical psychology mainly wuxuu xooga saarayaa qofka bini'aadanka ay wax ka khaldan yihiin sidee baa loo caawin lahaa maskaxiyan.